alla naxariistii jannaha ka waraabiye waxa magaalada Burco aas qaran loogu sameeyay marxuum Dayr Maxamed Cilmi oo ka mid ahaa ganacsatadii iyo odayaashii doorka weyn ka soo qaatay nabadeyntii iyo dib u dhiskii Somaliland. aaska marxuumka oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani, saraakiishii ururka SNM, mas'uuliyiinta maamulka heer gobol ee Togdheer iyo kan degmada Burco, saraakiisha ciidamada, bahda dhaqanka, culimada diinta, siyaasiyiin haldoor iyo sidoo kale dadweyne tiro badan ayaa dhammaantood waxa ay ka sheekeeyeen sooyaalkii iyo doorkii shariifka ahaa ee marxuum Dayr Maxamed Cilmi ku lahaa dhismaha iyo nabadeyntii Somaliland. Dayr Maxamed Cilmi jir Yuusuf warsame ilaahay naxariistina ha siiyo. Dayr wuxuu ahaa nin caan ah oo Somaliland laga yaqaaniyo dhacarka Soomaalida. Oday weyn buu ahaa, nin dhalinyaro ku hana qaaday buu ahaa. sidaan warku ayaa wuxuu ku dhashay deegaanka Turuqsi waqtii markii 80 sanad laga joogo. markii yaraantii uu ku quraan kuriyay oo ku magac bixiyay yaraantii weynaantii ban naafacalabo ahaa ilaahay naxariistina ha siiyo. halgankii dalka loo soo galayna raggii xoog wuxuu qayb qaatay buu ahaa. markii dambana baac mushtariga iyo hawlaha isugu jiray oday buu ahaa, oday dhaqan buu ahaa, baac mushtari buu ahaa, siyaasi buu ahaa, tiir buu ahaa, tiir ka baxay Somaliland. nin qiimo leh buu ahaa ilaahay naxariistina ha siiyo. halkan waxaan isugu nimi inuu ergey ilaahay uga nahay in ilaahay dambigiisa dhaafo, cadaabta ka dhowro, jannada geliyo. bismillaahir rahmaanir rahiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan maanta aynu joognaa qabrigii ama geeridii ama aaskii marxuum Dayr oo dhammaan shacbiga reer Somaliland iyo dadka Soomaalidu wada garanayaan. waxaan ilaahay uga baryaynaa marxuumka inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo, inuu ilaahay dembi dhaaf siiyo, inuu ilaahay xisaabta u fududeeyo. waxaan u tari karaynaa inuu ducayno. waxaan tacsiideynayaa ehelkiisii iyo carruurtiisii iyo dhammaan shacbiga gaar ahaan magaalada Burco iyo gobolka Togdheer. maanta waxaynu joognaa aaskii marxuum Dayr Maxamed Cilmi oo oday weyn ahaa, oday weyn oo qaali ahaa oo ilaa halgankii ilaa maanta xorriyaddii aan mar keliya ka nasan ummaddan horseedkeeda. waxaan halkan markaa ka tacsiideynayaa ehelkiisii, ubadkiisii, asxaabtiisii ayaan halkan ka tacsiideynayaa dhammaan ummadda reer Togdheer. isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay xawlka jannada ka waraabiyo. ilaahay waxaan u baryaynaa in ilaahay su'aasha u fududeeyo. ilaahay waxaan u baryaynaa kitaabkiisa midigta looga dhiibo. oday weyn oo qaranka ka baxay ducada loo wada ducaynaya ilaahay ha u aqbalo. ducaduun baynu ku daraynaa, wax kale ma yaalaan. ilaahay u naxariisto marxuumka maanta aas qaran ayaanu joognaa. oday Dayr Maxamed Cilmi ilaahay ha u naxariisto. wuxuu ahaa nin saraaxad badan oo wuxuu isagu ay la tahay aan la gaban jirin buu ahaa. wuxuu ahaa nin taariikh fac weyn hayay buu ahaa. halkan maanta waxaynu uga tacsiyadaynaynaa oon tacsidiisii joognaa aaskii Dayr Maxamed Cilmi Yuusuf. ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay su'aasha qabriga u waafajiyo. waxaan ka tacsiyadaynayaa ubadkiisii, xaasaskii, qaraabadii, ehelkii qaranka reer Somaliland, gobolka Togdheer gaar ahaan
ayaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maanta waxaynu aasaynaa deyr maxamed cilmi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo haliyey qaran oo Soomaaliland ka baxay ayuu ahaa waa Fahmi Kaysa Xirsi Bulsha TV Burco